xalayta inta la soo kalifay TV-ga soo fadhiistay ka xun madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland baa tegay Kenya waxa ku sheegaya waxaad ogaataa halkiina Xasan Muuse maray halkiina Cali Abubakar maray halkii Umar Carte maray halkii Jaamac Maxamed Qaalib maray ragga ahaa xilligoodii inaan xamar waxba dadkan u oolin midnimo dhimatay ayaa doondoonaysaa oo aad isleedahay mushahar wasiirnimo 4 bilood ah labaad ahayd imika bilino way ku hadhay waxaad ilowsan tahay wixii aabbaha ku dhacay wixii hooyada ku dhacay wixii burco ka qabsaday baad ilowsan tahay waxaan u sheegayaa nimanka xamar dawladda gacan ku rimiska ee ka jirta ayta ka dhalan doonta midina isuma kaaya dhaanto dadka ay leeyihiin waa inay ku xisaabtamaan ummadda ay dulmayaan ee malaayinka qofa ee aan idinka joogin ee ay leeyihiin 50 qof baanu doorasho u qabanaynaa waxay matelayaan Soomaaliland waxaan u sheegayaa war iska soo yiri dooni qaatayaasha khaymal wadaniinta ummadda reer Soomaaliland ee ay idin wada ogtihiin qadiyadooda ee dalkoodii iyo dadkoodii ee ku dhistay ee dawladda dhistay inay idinka xishootaan waxaan aad iyo aad runtii ula yaabaa ama ha noqoto kuwa imika madaxweynenimada doonaya ama kuwa hor u joogay iyo kuwa imikaba aan muwaadiniin maaha mana matalaan Soomaaliland sida daraadeed ay bay ku tahay ummadan waxaana xumaanto lamida tii maalintii madfacaya diyaaradahana lagu garaacay